madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay ka qayb galay xaflad soo dhaweyn ah oo isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. Masar Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Baydhabo waxaana halkaasi kulamo uu kula yeeshay dadka ku nool magaalada Baydhabo ee gobolka Ba iyo qaar ka mid ah madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. hadal jeedinta uu madaxweynuhu sameeyay waxa uu sheegay in Puntland iyo Koonfur Galbeed ay ku heshiiyeen arrimaha iskaashiga dhinacyada amniga, ganacsiga, isdhexgalka bulshada iyo dowlad dhisidda, iyadoo Puntland wixii aqoon dowladnimo iyo shuruuc ay ku taageeri doonto maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa sidoo kale madaxweyne Dani uu sheegay ilaalinta amniga dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool deegaanada maamulkaasi Puntland. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed iyo dowladda iyo shacabka sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa. madaxweyne Dani ayaa tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Puntland waxaa safarkiisii ugu horeysay uu ku yimid Baydhabo, waxaana maalmo uu ku sugnaa magaalada Baydhabo isagoona safaro kusoo kala bixiyay qeybaha kala duwan ee degmada Baydhabo iyo duleedka magaalada. maalintii shalay ayay ahayd kadib markii madaxweynaha Koonfur Galbeed uu wehelinayay kan Puntland ay socdaale ay ku tageen goobo taariikhi ah oo ku yaala magaalada Baydhabo, gaar ahaan xaruntii hore madaxtooyada Soomaaliya iyo goobo kale oo loo dalxiis tago oo ku yaala duleedka magaalada. safarka ayaa inta ay ku jireen waxa ay soo mareen goobo aad u qurux badan oo ku yaala halka loo yaqaano Mayafuulka ee Baydhabo, waxaana madaxweynaha Puntland ugu dambeyntii uu sheegay in shacabka ka soo jeeda reer Koonfur Galbeed ee ku dhaqan Puntland in la dooro isla markaana shacabka Puntland iyo kuwa Koonfur Galbeed ay noqdaan kuwo isku mid ah. Ismaaciil Abuukar Bulshaawi, Muqdisho.